السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم. waxaan ka hadli doonaa mowduuc ku saabsan midowga Yurub. Waa isu tag dhaqaale iyo siyaasadeed oo ay xubno ka yihiin 28 dal oo ku yaala qaaradda Yurub. Dagaalkii labaad ee dunida kadib reer Yurub waxa ay go'aansadeen inay ku heshiiyaan sidii ay nabad ugu wada noolaan lahaayeen. Dhaqaalahan isaga kaashan lahaayeen halkii ay dagaal joogto isu burburin lahaayeen. Sanadkii 1957 waxaa samaysmay isbahaysi dhaqaale oo la oran jiray beel dhaqaaleedka Yurub, European Economic Community, oo loo soo gaabiyay EEC. isbahaysigaasi waxa uu abuuray suuqweyne guud oo ka dhaxeeya dalalka xubnaha ka. Waxa ka dhashay xeerar dhaqaale oo lagu dabaqay Yurub oo dhan, kuwaas oo ogolaaday dadku inay si xor ah u ganacsadaan, si xor ahna ugu kala gudbaan dalalka xubnaha ka dhexdooda si la mid ah sida dalalkooda ay ugu dhex socdaali karaan ama ay ugu dhex ganacsan karaan. Aasaaskii 60 wadan ayaa ka koobnaa Faransiiska, Talyaaniga, Jarmalka, Galbeed Holland, Belgium iyo Luxembourg. EEC waxa ay isku bedeshay aag dhaqaaleedka Yurub, European Economic Area, oo loo soo gaabiyay EEA. waxa uu ka koobnaa 15 dal. Sanadkii 1985 ayaa heshiis loo bixiyay afgaradkii Schengen lagu go'aamiyay in la isu furo xuduudaha dalalka xubnaha ka ah si loo fududeeyo socodka dadka iyo ka ganacsiga. Sanadkii 1993 ayaa heshiis la magac baxay heshiiskii Maastricht lagu go'aamiyay in magacii EEC loo bedelo Beelweynta reer Yurub, European Community. halkan ayuu si rasmi ah uga dhashay midowga Yurub. Sanadkii 2002 ayaa 12 dal ku heshiiyeen inay wadaagaan lacag isku mid ah oo la yiraahdo euro. Sanadkii 2009 ayaa heshiiska Lisbon dib u habeyn lagu sameeyay. midowgiina waxa loo sameeyay madaxweyne President of European Council. heshiiska Lisbon wixii ka dambeeyay beesha Yurub waxa ay noqotay midowga Yurub. heshiiska Lisbon waa heshiiskii ugu dambeeyay ee dhigaya sida loo maamulayo midowga Yurub. dal walba oo kamid ah dalalka xubnaha ka waxa ay ogolaadeen waxa ku dhigan heshiiska. waxa uu qeexaya howlaha midowga ka dhaxeeya iyo kuwa dal walba uu gaarka u leeyahay. dalalka xubnaha ka waxa ay awood u leeyihiin inay go'aamiyaan sida ay tahay in midowgu u dhaqmo, iyagoo cod u qaadaya soo jeedinta la soo dhigo. ujeedada loo dhisay midowga Yurub waa in la soo dhaweeyo dalalka qaaradda Yurub ku yaala si ay isaga baystaan dhinacyada dhaqaalaha, siyaasadda iyo nabadgelyada. midowga Yurub waxa ay leeyihiin xeerar midaysan jaangoyn si ay cadaalad ugu kala ganacsan lahaayeen iyaga dhexdooda. waxa ay leeyihiin sharciyo midaysan oo dhinaca sharci fulinta iyo heshiisyo kale oo ay ku midaysan yihiin. kasako lacagta midaysan ee laga adeegsado Yurub waxa ay dadkoodu si furan isugu socdaali karaan iyagoo aan fiisa ama dalku gal weydii. tusaale ahaan, qofka u dhashay dal ka mid ah 28 ka dal waxa uu u guuri karaa kana shaqaysan karaa dal ka mid ah midowga Yurub isagoo aan wax fasax ama cashuur dheeri ah la weydiin, si la mid ah sida muwaadiniinta kale ee dalkaasi. alaabada lagu sameeyay dalalkaasi mid ka mid ah waxa si furan loogu iibin karaa dal kasta oo ka mid ah midowga Yurub iyada oo aan cashuur dheeraad ah ama fasax gaar ah aan la weydiin. bishii June 2016 waxa dalka Ingiriiska cod aftiyeed kaga baxeen midowga Yurub, laakiin waqti ayay qaadanaysaa in go'aankaasi la fuliyo. ilaa 2 sano ee soo socota xubin ayuu ka sii ahaan doonaa. qaab dhismeedka midowga Yurub. midowga Yurub waxa uu ka kooban yahay dhowr hay'adood. 1. baarlamaanka midowga Yurub, golaha sharci dejineed. 2. golaha Yurub, hogaaminta iyo jihaynta. 3. golaha midowga Yurub, aqalka sare ee xeer dejinta. 4. guddiga Yurub, guddi fulineed. 5. maxkamadda garsoorka ee midowga Yurub, cadaaladda. 6. maxkamadda oodhadka ee midowga Yurub, dabagalka maaliyadda. 7. bangiga dhexe ee Yurub, fulinta maaliyadeed. dalalka xubnaha ka Belgium, France, Jarmalka, Talyaaniga, Luxembourg, Holland, Denmark, Ireland, Greece, Portugiiska, Spain, Austria, Finland, Sweden, Qobrus, Jamhuuriyadda Czech, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Slovenia, Slovakia, Bulgaria, Romania, Croatia. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت سأيام كتشوتشين آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل ومذكرات في الحياة منها ارتوى